السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ديك هديك شالي ku xirneed canshuur darteed tan kala xiro kuleelka kugu dhacay maanta madaxweynaha waa hadlay wuxuu yiri toddobaadka soo socda waliba toddobaadyadaan canshuur ayaan bilaabeynaa waliba nuuc culus ah dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay cashuurta hal la bixiyo sitamaanada soo socda waliba dawladdu campaign oo cashuurta dadka lagu bixinayo qaaday laakiin markay timaado cashuurtii ma dhiibin qofka gardaran mar walba qofka gardaran qofka shalay qeydinayay oo ganacsadaha ah oo dhahay war waxaan iga qaadaysi maxaa igu qabateen nabar ku noqotan sax waay nabar ama fallaar lagu taago waa kan shacabka ah ee canshuur bixiyaha ah oo guriga uu degan yahay xitaa hadduu kireysta yahay $25 laga qaadana waa uga sii daran tahay tan sababtoo ah jidka uu marayo waa jajaban yahay lacagna waa laga qaadaya mid kalena madaxweynaha ku dhawaaqay maxaa ku xala saaxiibkeeyo xaalka waa adkaaday xaalka baraka maleewa ogowse war madaxweyne dhaqan gal waa sidiisaba hadduu hadda dhaho general munasar asagoo hadlaya kaliya uu general munasar ugu hadal qabsado toosal igu xiraani garaadada digreeto waa canshuur hadduu dhahayn waa dhaqan gasho waa macnaheed saxiix iyo iska dawareeg uma baahan madaxweynaha dhinaca canshuur cusub nooca canshuurta loo afka uga sheegi doonaa waa la gali doonaa canshuur waxay noqon doontaa qofka socdo dhaf la siisto oo la dhahayo aday horta ma ku jirtaa caymis ma ku jirtaa qof ahaanta ma fahmi karno laakiin toddobaadkan qaylada tii hore waa ka dari doontaa dadka shacabka ah canshuur nooc kasta laga qaadaa canshuurta guriga canshuurta kireystaha canshuurta iibka ya haddii xitaa marka adoo intaas dhiibay ganjeelka albaabkaaga uu gaari jugkaasi oo asdhahada iska bedelniyo yaa tuu kuu soo galin canshuurta dib u dayactirka waa taaganta waa dhiibay marka intaas ka soo degtid ganacsatada imaw nooc kastoo canshuura laga qaadaa canshuurta wax soo iibsashada canshuurta wax sii iibinta canshuurta soo galitaanka wixii soo galay ah canshuur dadku u shaqeynaayo canshuurta dhismaha ganacsatadii waa wareereen wax loogu qaban weyne malaha marwa fertility center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmala'aanta ragga iyo dumarka ku dooro baaritaan la hubo daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsanid canshuurti waa la qaadaa laakiin celis malaha birmade canshuur in la dhiibo dadka ma diidana laakiin madaxweynaha waxay ahayd maanta oo kale inuu hal arrin ka dhawaajiyo oo ah canshuurta markuu carabka ku dhufto inuu dhaho canshuurtaasna idinkan wax weyn idinkugu qabanayna uu waliba farta ku fiiqo uu dhaho jidadka hebel iyo hebel hebel canshuurta ugu horeysa ee hadda aan soo rogin wax loogu qabanaa saasaa la yeelaa saas iyo saas iyo saas iyo saas laakiin madaxweynaha waxaasoo dhan marka hadlana wuxuu yidhi canshuur culus oo weliba adag ayaan dhaqan gelinaynaa sidoo kaleetana wuxuu raaciyey fiiri yaa gar daran uu yiri qof la dhahay canshuur bixi iyo dowladda gar daran mase shacabka wuxuu yiri waxaa gar daran shacabka canshuurta diidayso waayo madaxweynaha inkastoo meeshaas wax yar uu ka garaabo uu dhahay dowladda waxyaabo muwaadinka uga gar daran tahay jiri kara waana ka gudb waa ka siibti Sudanes Specialist Hospital waa isbitaalka ugu fiican dalkeena waxa uu ku guuleystay markii afraad u xiriir abaalmarinta isbitaalka ugu fiican dalkeena ما مدحوين waxaana kamid ah canshuurtan oo kala kamid ah qofka canshuur inuu bixiyo ma diidan marka canshuurtiis wax loogu qabanayo qofka haduu og yahay isbitaalada inay lacag la'aan laga dhigayo isbitaalka dawladda lacag la'aan laga dhigayo hadda isbitaalka dawladda ay leedahay hadaa tagtid lacag la'aan magac uu ka yahay mooyee galoofiska adaa soo gadanaya adaa dhiibay lacagta waxaas oo kale in wax laga qabto way madaxweynuhu iskuulaadka free ma aha iskuul dawladeed hadda lacag la'aan ah bariyii hore jiri jirin hadda shaaftaas waa isku dhamaatay marka jidadka waa burbursan yihiin gudoomiyaha gobolka kaligiisa iska khalaacsan wadooyin lama dhisooyo mashaariicda dadka maalqabeennada ugu waaweyn dadka dawladda ka shaqeeya waay shacabkana dadka ugu faqiirsan ay noqdeen ganacsatada dadka lagu liibaanay noqdeen Global Fertility Center waxaad ka helaysaa daaweynta xanuunada keena dhalmanaanta ragga iyo dumarka ku dooro baaritaano la hubo iyo daaweynta sare leh dumeeriyada waalidnimo oo dooro Global Fertility Center oo iga farxadda lamaanaha booqo hadda ama ka wac nambarada ku muuqda ayaga aan liibaanoon oo waxooda laga sii qaadayo marka waxaas oo dhan la rabaa in wax laga qabto birmadana arrintaas muhiim inuu ka shaqeeyo dawladda hadda jirtana canshuurta keenta kaliya in laga dhaafo waayo oo dhahniyo shacabkan wax ku celin isbitaalka kalkaal afarta jirdiin wuxuu howlgeliyay xarunta ugu weyn ee wadnaha oo ka kooban saalooyinka qalliinka furan ee wadnaha qallimada xiran ee wadnaha ee loo yaqaan cath-lab iyo qaybta baxnaaninta xaaladaha wadnaha CCU soo booqo oo ka hel daryeelka wadnahaaga wadnahaagu waa noloshaada wixii faahfaahin kala soo xiriir eberle hal 77 ama eberle hal 77 madaxweynaha laakiin waa soo wada banaan baxay ama diid canshuur ama yeel kulli taho war madaxweyne
dhaqan gal waay hala bixi canshuurta